xiisad culus ayaa ka dhex qaraxday dalalka Djibouti iyo Itoobiya iyadoo laga cabsi qabo in ay lugaha la soo gasho Soomaaliya gaar ahaan maamulka Somaliland. xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Djibouti ayaa xumaaday kadib musaafiriintii dhawaan dalka Djibouti lagaga celiyay in ka badan 60,000 oo muwaadiniin Itoobiyaan ah oo aan hore u haysan sharciyo sax ah. tallaabadan ayaa dhalisay carab ballaaran waxayna sii horisay xiisado ka taagnaa gobolka Geeska Afrika iyadoo sidoo kale sababtay in Itoobiya ay dib u eegto istiraatiijiyadeeda ganacsi iyo ku tiirsanaanta dekedaha Djibouti. musaafiriinta oo socotay toddobaadyo intii u dhaxaysay bishii Abriil iyo horaanta bishan May 2025 ayaa daba socotay olole dawladeed oo Djibouti ay ka waday xakamaynta dadka aan sharciyeysnayn, inkastoo safaaradda Itoobiya ay hore ugu baaqday muwaadiniinta sharci la'aanta ku jooga Djibouti in ay si iskood ah ugu laabtaan dalkooda. haddana dad badan ayaa la kulmay musaafiriin degdeg ah taasoo keentay jahwareer iyo ciriiri ka dhaca xuduudaha Galaafi iyo Dawaale ee ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Djibouti. kumanaan Itoobiyaan ah oo shaqooyin hoose ka hayay Djibouti muddo sanado ah ayaa lagu qasbay inay isaga baxaan guryahooda iyagoo aan isku diyaarin safarka degdeg ah, taasoo sii kordhisay dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka taagan gudaha Itoobiya. dhacdadan waxay dhaawacday xiriirka dhow ee ganacsi iyo iskaashi ee u dhaxeeya labada dal, gaar ahaan maadaama Djibouti ay tahay marin badeedka ugu weyn ee Itoobiya ay xilligan isticmaasho. iyadoo ay xaaladdu cakiran tahay, dawladda Itoobiya ayaa dardar gelisay qorshayaal ay ku yareynayso ku tiirsanaanta dekedaha Djibouti. qorshaha cusub ee istiraatiijiyadeed ayaa xoogga saaraya dekeda Berbera ee maamulka Somaliland, halkaas oo Itoobiya dhawaan ay ka furtay xafiisyo iyo si loo fududeeyo howlaha dhoofinta iyo dejinta badeecadaha Itoobiya. wadada Berbera ee koridor oo isku xirta dekeda Berbera iyo magaalada Addis Ababa ayaa loo arkaa mid istiraatiiji ah, waxaana laga rajeynayaa inay noqoto marin kale oo muhiim ah oo suurtagelinaya in Itoobiya ay si fudud ula xiriirto suuqyada caalamiga ah. dekeda Berbera oo ay maamusho shirkadda caalamiga ah ee DP World ayaa lagu sameeyay maalgashi ballaaran si loo kordhiyo awoodeeda iyo waxtarkeeda ganacsi. hase yeeshee, xiriirka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya Itoobiya iyo Somaliland ayaa abuuray xiisado siyaasadeed oo hor leh. heshiis oo labada dhinac ay kala sixdeen bishii Janaayo sanadkii tagay 2024 kaasoo Itoobiya u ogolaanayay in ay hesho marin badeed toos ah oo Somaliland ah iyada oo looga bedelanayo aqoonsi suurtagal ah oo ay siiso Somaliland, ayaa si weyn uga careysiiyay dawladda Soomaaliya xilligaasi oo weli u aragta Somaliland inay tahay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ku heshiiyay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo wada xaajood lagu xalinayo khilaafaadka kadib heshiiskii Ankara ee ay kala sixdeen labada dhinac December isla sanadkaasi 2024. haddana waxaa muuqanaysa in kalsooni buuxda aanay jirin labada dhinac. Itoobiya ayaa isku dayaysa in aanay ka wada farxalan is-afgaradkii Somaliland maadaama aanay isku haleyn karin Soomaaliya, isla markaana baahi badan ay u qabto helitaanka marinada badda cas, halka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dareemayso Itoobiya inay tahay dawlad yasaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya, isla markaana luqaafo iyo iska daba wareeg ku sameynaysa dhulka Soomaaliyeed. waxay xaaladan ka soo kordha wararkeena iyo falanqeynaheen xigayeen ku soo gudbin doona ila socod wanaagsan. mahadsanidin.